بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan idin hayaa sheeko aad u cajiib ah oo xeel dheer sheekadan waxaan u bixiyay lama filaan waxay ku qoran tahay sidoo kale blogayga qofkii jecel inuu akhriyo qof kalena videoga aan daawan karo sheekadan waxay dhacday shalay galab qaybteedii hore waxay ahayd shalay galab shalay subax baan markii aan shaqada ka rawaxay baan xaafadda sii aaday waxaan sii raacay baabuurta dadweynaha gaadiidka dadweynaha marka nin Yemeniya saaran oo wuxuu wareejiyay cadarada galabtii baan soo noqday mise isla ninkii Yemeniga ahaa baan markaa meel dhex maraynay jidka naga soo raacay meeshuu nooga dagay markii hore subaxdii asagu wuxuu wataa alaabtiisa cadaradii iyo wixii iibinayay laakiin galabtii asagoo soo labistay oo habiya buu soo raacay macawiis Yemeniyiintu xirtaano sida go'yo oo kala ah oo sida macawiseen oo kala aan wareegsanayn marka waxaa gaariga nala saarnaa galabkii nin askariya oo asna macawiis qabay qori ka ah wata oo ammaanku u furan yahay marka ninkii askariga ah baa ninkii Yemeniga afka iskala soo galay Carabina kulama uu soo hadlayna Soomaali wuxuu ku yiri maxay tahay macawiistatan marka waa u tarjumay waxa ninkan wuxuu ku weydiiyay macawiistan sidaan ah maxay tahay marka waxa uu yiri waxa ku tiraahdaa macawiistan Yemeniyiinta bis baa xirata waa dhaqankayaga waana special ma aha macawiis dadka oo dhan xirtaan marka hadalkii halkaas uu ka ekaaday adigu sheeko kale iska sii galgalnay markaan u soo dhawaa meeshan ooga hari lahaa ninka askariga wuxuu igu yiri ninka waxa ku tiraahdaa qoriga aan wato yuusan ka nixin yuusan maaragtay u qaadan inaan handadii iyo hadalkii wixina dhex maray inta u sheeg buu yiri askariga baan ninkii Yemeniga u sharxay waxa ninkii askariga sidaas ku leeyahay marka ninkii Yemeniga wuxuu yiri dhimal anagu Yemen baan nahay hubka iyo qoryaha waxaas waa dhaqankayga waa naqaanaa waxa marka aan ka helay oo aad ii taabtay ninka askariga ah dareenkiisa iyo garashadiisa iyo dhadhansigiisa ku aadan in ay dhici karo ninka Yemeniga ah oo aan wadankiisa joogin in uu dareemo in ninkaasu handaday maadaama uu qori wato oo inuu wax walba weydiin karo afka iskala soo gali karo afkiisa uu kula hadli karin askarigaas wuxuu dareemay ninka inuu waxaas dareensiin karo marka asagoo taa ka dadaalaya ayuu wuxuu ilaaliyay shucuurtiisa iyo qalbigiisa iyo dareenkiisa arrintaas waa arrin bogaadin mudan waa arrin gobonnimo ah waa arrin garasho dheeri ah xilligii Yementu u soo qaxday Soomaaliya waxaa dhacday in la soo dhaweeyay sidoo kale waxaan maqlay ama la sheegaa in ay jireen dad ladan oo dadka Yemeniyiinta ay qaxootiga ah oo dalkooda la soo burburiyay oo rafaadsan oo silicsan dadka qaybtood ay hunguriyeen gabdhahoodii oo de guur lama dhihi karo gabadhu marka ay guurkeedu uu sharafta leeyahay waxa weey gabadhu marka ay ku diidi karo ama ku yeeri karo gabar qaxootiya oo familigood waqtigu xalaasha u yahay oo dhiban hadii waalidkeed la yiraahdo gabadhaada nasi waxa laga yaabaa culeyskeeda kharashkeeda isdhaaf inuu shiraahdo marka ninka askariga nin garasho dheer buu ahaa nin insaaniyadu ku fogtahay buu ahaa qisadatan fariinta ku jirta waxay tahay dadka yeynaan ku qiimeynin muuqaalkooda iyo nolosha heerka ugu jiraan